daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saaro gambeelka furada wararkii ugu dambeeyay khasaarihii ugu badnaa abid oo ururka al-shabaab la gaarsiiyay isla markaasina ay la socdeen urur ajaanib ah oo al-shabaab ka babar dagaalama ayaa halkaasi dukum daakum lagu dhigay duqaymada la beegsaday goob ay munaasabad ugu socotay kooxda al-shabaab iyo kolonyo galbinaysay ajaanib isla markaasina xasuuq usoo doontay Soomaaliya sida hadalka loo dhigay isla markaasina kamid ahaa saraakiisha ugu sarsareeya ee amniyaadka al-shabaab ayaa iminka laba duqeyn oo kala gooni ah halkaasi dhulka lagu aasay wararkii ugu dambeeyay dhimashadii ugu badnaa abid al-shabaab la gaarsiiyay taasi oo loogu aarayo qaraxyadii ay ka geysteen X control warar dheeraada ayaa ka soo baxaya duqeymo isxixiga oo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Dhexe iyo Baay ee koonfurta Soomaaliya isla markaasina lagu bartilmaameedsaday ururka al-shabaab iyo kuwa ajaanibta ah si kastaba ha ahaatee dadkaasi ayaa waxa la yiri midna maysan ka fiigin saraakiil ciidamada amniga Soomaaliya ayaa warbaahinta u xaqiijiyay duqeymihii ugu dambeeyay ay geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray xubno ka tirsan ururka al-shabaab isla markaasina ay aad ugu badnaayeen kuwa ajaanib ah halkaasi ay tababar u joogay duqeymihii hore ayaa ka dhacay deegaanka Buulo Fuulay oo ka tirsan gobolka Baay waxaana lala eegtay mas'uuliin ka tirsan ururka al-shabaab kuwaas oo la sheegay inay isugu jiraan saraakiisha hogaaminaysay jabhadda dagaalka tooska ah ee al-shabaab iyo mas'uuliin kale oo ka tirsan ajaanib ah raggaasi ayaa ahaa saraakiisha u qaabilsan weerarada tooska ah isla markaasina magaalooyinka waaweyn u soo dira kuwaasi oo tababar halkaas ugu socday ayagana dhulka lagu aasay isla xilliga ay duqeynta ku socotay deegaanka Buulo Fuulay ee gobolka Baay waxa sidoo kale ay duqeyn xooggan ka socotay deegaano salaga ee gobolka Jubbada Dhexe sida ay saraakiisha dawladda noo xaqiijiyeen isla markaasina ay sheegeen halkaasi ay ka gaarsiiyeen xasuuq aad u fara badan oo la gaarsiiyay ururka al-shabaab duqeynta salaga duqeynta salagle ayaa la sheegay in lagu qaaday goob ay maalmahan tababar ama dawlatus al-shabaab ugu qabanayeen mas'uuliyiin dhanka ciidamada u qaabilsan waxaana jira khasaaro dhimasho aan wali tiradooda rasmiga ah la sheegin maadaama halkaasi gabi ahaantoodaba ay ahaayeen saraakiil iyo ciidamo halkaasi tababar ugu socday isla markaasina gabigooda halkaasi gantaaladii la dhex dhigay aaliyiri midna muusan ka fiigin saraakiisha Soomaaliya ayaa sheegay in duqeymaha ay ku dhinteen saraakiishii ugu muhiimsanaa abid oo uu ahaa gaar ahaan sargaalkii u qaabilsanaa dhanka howlgallada ee dagaalada tooska ah ee lagu qaado xarumaha ciidamada isla markaasina u qaabilsanaa meel kasta oo weerar toos ka dhaco ayaa halkaas lagu soo afjaray si kastaba ha ahaatee sargaalkani ayaa waxa muhiim u ahaa al-shabaab isla markaasina ciidamada Mareykanka ee droniska wata ayaa ayagana baadi goobka ugu jiray isla markaasina muhiim u ahaa inay ninkan qaarijiyaan saakayna ay ku guuleysteen inay halkaas ku qaarijiyaan degmada Jilibna duleedkeeda waxaa lagu soo waramayaa in lagu duqeeyay kolonyo ciidan oo u socotay dhanka iyo degmada Bu'aale kuwaas oo la sheegay inay galbinayeen dagaalyahano ajaanib ah iyo kuwa amiiro ka tirsan hogaanka sarsare ururka al-shabaab isla markaasina golonyadii la dhex dhigay ilaa dhowr gantaal isla markaasina mid dhintay iyo mid fiigay isla markaasina baabuurtii gabi ahaanba la sheegaya in halkaasi ku basbeeleen ajaanibtii la socotayna halkaasi lagu guuleystay gabi ahaanba in dhulka la dhigo dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay waxaa xoogaystay duqeymaha diyaaradaha oo ay fuliyeen diyaaradaha Mareykanka iyo kuwa kale ee reer galbeedka isla markaasina lagu bartilmaameedsanayo saraakiisha sarsare ururka al-shabaab isla markaasina xasuuq inteeda badan ka geysta dalka Soomaaliya Mareykanka ayaa maalmo ka hor sheegay inay duqeyn ay ka fuliyeen gobolada Jubbaland ay ku dileen dagaalyahano ka tirsan ururka al-shabaab kuwaas oo ku sheegeen rag aad dhanka al-shabaab ugu cuslaa isla markaasina ahaa ragga weerarada hogaamiye isla markaasina qaraxyada sameeyo si kasta ha ahaatee isku soo wada duubo duqeymihii maanta ayaa waxa lagu gaarsiiyay ururka al-shabaab khasaare aad u xoogan aan la ogeyn inta rasmiga ah ee ku dhimatay walow la sheegay gabi ahaantoodaba in dhulka laga dhigay dambas si kastaba ha ahaatee ajaanibtii la socotay ee kasoo jeestay Afghanistan iyo wadamadaas kale ayagana halkii ayay ku basbeeleen halkaan naga daawanaysa waa calansida media fadlan la joog warbixinada xiga ayaan kusoo tabin doonaa khasaaraha rasmiga iyo magacyada saraakiisha ajaanibta halkaas lagu xasuuqo iyo wadamada ay kasoo jeedaan nala joog dhinaca kale guddiga shaqaalaha rayidka ah oo ka hor yimid magacaabis uu sameeyay wasiir maareeya isla markaasina anaan la duldhigay guddiga qaranka ee shaqaalaha rayidka ee dawladda ayaa dib ugu celiyay wasiirka warfaafinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye agaasimaha uu magacaabay wasiirka ayaa horay xilka ugu qaaday 6 agaasime waxaana warqad ka soo baxday guddiga ay ku sheegeen in guddiga dalacaada ee wasaaradda aanay u dhamaystirnayn koromka go'aanka ka qaadashada ee garta sida uu qabo sharciga shaqaalaha isla markaasina koromka u dhamayn aysan macquul ahayn inuu xilkii ka qaado oo wax magacaabo
sidoo kale qoraalka guddiga ayaa lagu sheegay in loo baahan yahay in dib loo eego nidaamkii xilka qaadista iyo magacyada, taasi oo keentay in wasiirka maareeye la yidhi waxaas waxba kama jiraan oo dib ugu laabo. si kastaba ahaatee arrintaasi ayaa iminka kacsan oo waxaa la leeyahay wasiir maareeye waa uu ku adkaysanaya inuu xilkii qaaday uuna magacaabay, guddigana waa ay kasoo horjeedaan. dhinaca kale madaxweyne dani oo sheegay in puntland hogaaminayso kacdoonka dowladnimada soomaaliya. madaxweyne dani ayaa tababar usoo xiray cutubyo ka tirsan ciidamada birimadka madaxtooyada oo muddo 5 bilood ah tababar ugu socday xerada ciidamada daraawiishta ee 54aad. madaxweyne dani oo ugu horeyn salaan sharafeed ka qaatay ciidamada difaaca puntland ayaa bogaadiyey dhoolatus ay ciidamada la tababaray soo bandhigeen, islamarkaasina indhihiisa uu ku arkay aad ula cajibay. wuxuu sheegay in tayeenta ciidamada iyo inay helaan mashaaridkooda ama mushaaroodkooda ay si joogto ah u helaan waxyaabihii ay ku guuleysatay dowladii sanadka dhammaaday 2019, taas oo ula jeedo ciidamada kasta oo puntland u shaqeeya mushaaroodkoodii iyo waxyaabihii xaq u lahayn si toos ay u heleen sanadkii lasoo dhaafay ee 2019. waa qaybtii saddexaad ee ciidamada birimadka oo tababar loo soo xiray tan iyo wixii qayb ka tahay waxay qayb ka tahay dib u habeynta ay dowladda ku wado hay-adaha ammaanka iyo ciidamada qalabka sida. madaxweynaha oo caddeeyey in ay ka go'an tahay tayeenta askarta ayaa kula dardaarmay ciidamada tababarka usoo dhammaaday kuwa sida ay tahay in uu gutaan waajibaadkoodii saaran, islamarkaasina shacabka u adeegaan, aan la doonin inay musuq maasuq sameeyaan, islamarkaasina amniga magaalooyinka lagu qoro ay si sax u fuliyaan. waxaa balan nagu ahaa ayuu yidhi in dalka madaxda furasho dambe loo haysan doonin ayuu yidhi mid meel isaga mid ismoodayba iyo mid reer soo kaxaystaba cidna kama aqbali doono ayuu yidhi madaxweyne dani. isagoo hadalkiisa sii wata dani ayaa carabka uu ku adkaystay inay ka go'an tahay in puntland hormuud ka noqoto kacdoonka dowladnimo ee ka bilowday guud ahaan dalka soomaaliya. madaxweynaha dani dadka soomaaliyeed nasiib darrada iyo hoggaan xumada ku dhacday waxaad moodaa in wixii yaraa ee la amaamuday muddadii yare ee dadka dowlad ahaan la rabay in loo burburiyo ayuu xusay. wuxuu tibaaxayaa waxaa rajaynayaa dowladda puntland sida marar badan hormuud ugu ahaan jirtay dalka soomaaliya inay marar labaad ay hormuud ugu noqoto kacdoonka dowladnimo ee ku salaysan uu yidhi ammaan sugan, nidaam maaliyadeed oo sugan, adeega bulshada oo dhinacyadeeda kala duwan iyo kala dambeyn midnimo lagu tashiilay ayuu yidhi. ugu dambeyntii madaxweyne dani ayaa hoosta ka xariiqay in xukuumaddiisa ay xoojin doonto tiirarka puntland lagu aas-aasay oo ah adkeynta federaalka iyo midnimada ay wadajir ummadda soomaaliyeed u joogaan. si kastaba ha ahaatee khudbadiisa oo sii dheereed ayaa waxa uu bogaadiyey ciidamada tababarka u soo xiray inay waajibaadkooda gutaan. halkaa naga daawanaysaan waa calansida media, fadlan nala joog oo daa warbixinadeena xiga.